waxaa jirta in maadaama kirada guryaha magaalada aan ognahay inay qaali tahay meesha wax lagu baranayaan ay dad 300 qof isugu imaanayaan ay tahay fikrad ah in la gado dhul oo loo gado hay-adii oo maamulkii hay-adda iyo dadkii ardadaas wax barayay go'aansadeen waxaa codsanaya iidan in laga qayb qaato ka qayb qaadashada muhiim waaye sababtoo ah ijaarku markuu biri ka joogsado oo gurigaas ijaarka ka yaraado oo ijaar la'aan ilmo wax ku bartaan wax badan suuragal noqonaya korontada qof dabari kara biyaha qof dabari kara dharkana waxa xataa suuragal noqonaysa inay lacagta hadda dadka laga qaado ay sii yaraato ama dadku sii bataano bul weyn loo helo yani meel baaxad la gaaro sida daraadeed nafteena waxaan ku waaninayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo dhawaado looguna dhawaado dhanka sadaqadu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka bini aadamka qofka xanuunsan yani sida la arkay waa lagu caafimaada sadaqada qofka baxsada lagu caafimaada qofka yani walwalsan walwalku way runtaa walwal tira la yiraahdaa sadaqada firkeeda waa mahadsantihiin waxaan dirjeenayaa insha Allah ta'ala inagoo wada garab istaagnaa al-mustaqiim oo isla markaasna aan agoontaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala door in agoon noqdaan oo abahood jeclaystay iyo danyartaas maanta aan heli karin inay iskuul wax ka bartaan Ilaahay u door in garabkooda istaagno nimankaas iyo wiilashaas iyo gabdhaha Soomaaliyeed iskood u soo istaagan inaan dhahno waa mahadsantihiin adinka kaligiin ma saar mas'uuliyadda qayb aan khalana aan dhahno rajeynaya aad mahadsantihiin assalaamu calaykum warahmatullaah Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa